أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلاء بالقرآن. بركاتك كم تبني الإنسان بالطاعة فيك وبالإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، waxaan ku jirnaa bishii barakaysanayd رمضان الكريم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل جميع أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. waxaan rabaa dhowr kelmateyn ku saabsan zakaatul fitriga inaan soo jeediyo ayaan rabaa insha allahu tacaala, maadaama ay nagu soo food leedahay in kelimaad gaagaaban oo ku aadan zakaatul fitriga aan wax ka sheego. zakaatul fitriga dadka muslimiinta waa mawduuc aad iyo aad loo yaqaano waaye, soo laalaabto. maxaa yeelay sanad walbo markii la soomo waxaa imaanaya zakaatul fitri. markaan qofka muslimka waa inuu aqoon dheeraad u leeyahay waajibkaasi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta dul saaray, waa inuu aqoon u leeyahay. maanta kelmadeedii koowaad waxay ku saabsan tahay bal zakaatul fitri maxaa loola jeedaa. zakaatul fitri micnaheed waa maxay? halkaas ayaan ku wareegi doonaa insha allahu tacaala, iyo zakaatul fitri xikmad ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda islaamka loogu waajib yeelay maxay tahay. zakaatul fitri zakaa lafdiga macnaha oo zaka ah. الزكاة معناها waxaa waaye waa kobac, النماء والزيادة. shaygan inuu bato iyo ziyaado ayaa waxaa la dhahaa zakaa. iyo والطهارة xagga تزكية النفس تقديس xagga nafta oo la طahirana waxaa la dhahaa zakaa. marka lafdiga zakaa zakaatul fitri ayaa la yidhi, waxaa loo idaafeeyey fitri ayaa loo idaafeeyey. zakaatul fitri waa min idaafati shay ilaa sababihi. wa shay-a waxaa loo idaafeeyey sababtiisa. zakaatul fitriga waxay waajib ku noqotaa, waajib ay timaadaa markii uu imaado fitri, markii laga afuro soonkii. qofkii waa soonaayay, soonkiyaa u dhammaaday, markaas ayuu waajib noqonaa. zakadii markaasay waajib noqonay. markaan zakadii waajib noqoshadeeda ayaa waxaa loo idaafeeyey soonkii dhammaanshihiisa, soonkii ka afuridiisa. markaas waxaa la yidhi zakaatul fitri. zakaatul fitri lianna alfitra min ramadaan sababu wujuubiha. ka afuritaanka laga afuro soonka ayay waajib ku noqotaa zakaatul fitriga. markaasaa lasu idaafeeyaa zakaatul fitri. markaan fitriga waa afur. waxaa la dhahaa zakaatul fitri mise sadaqatul fitri. afurka sadaqadiisa markii la afuraayay oo ramadaanka uu dhammaado, sadaqadii la bixinaayo la dhiibaayo. markaan goormay waajibtaa, yay ku waajibtaa, waxaasoo dhan way noo imaan doonaa insha allahu tacaala. markaan xagga luuqad ahaan zakaatul fitri waa qaabkaasi. alfitri waa afurka. aftara waa afuray waayo. yuftiru waa afuri doonaa. masdarku wuxuu ku imaan lahaay iftaaran ayuu ku imaan lahaay.
laakiin waxay yiraahdeen alfitri ayuu ku imaaday masdarka noocaas waxaa la dhahaa ismu masdar ismu masdar maanaa ficilka meeshii laga rabay inuu ku imaado masdarkiisa meel kale ku imaado aftara yuftiru iftaar waxaa rabay inuu ku yimaado iftaar inuu ku yimaado la markaas wuxuu ku imaaday fitri ay yiraahdeen markaan waxaa la kaas oo kale ismi masdar ay yiraahdaan kaas waa xagga luqada xagga istilaah ahaan istilaahan zakatul fitri waa maxay mise sadaqatul fitri waa maxay istilaahul fuqaha dadka muslimiinta fiqhiga yaqaano wax ka qoray maxay yiraahdeen waxay yiraahdeen hiya sadaqa waa sadaqo tajibu bil fitri waxay ku waajibtaa afurka ramadaanka oo dhamaado ay ku waajibtaa hadduusan ramadaan ku dhamaanin ma soo gaarin ramadaan ma dhamaysan qofkii waa dhintay kuma waajibin markaan waxay ku waajibtaa qofkii ramadaanka dhamaystay tajibu bil fitri min ramadaan bisha ramadaanka dhamaysi qofka uu dhamaysto ay ku waajibtaa طهرة للصائم من اللغو والرفث طهرة للصائم قفك الصومن أي طهيري وحي أطهي طهيري محي كطهيري من اللغو والرفث أفحمذي إيه وحيابه قفك الصومناي كدعي أو يراي أي كنديفين مركان فايدين بدن أي لا هاي فايدين وحان كمدا qofkii soonaay qofkii insaan waaye banu aadan waaye soonkiis waxaa laga yaabaa in ay ku timaado khalal waxbaa ku imaan karo waxaa soonku ku imaaday oo yar ka ah qofku markii uu dhiibo zakatul fitri uu bixiyo wixii ka dhacay ay ka nadiifinay markaan faa'iido weyn waa kaas waa taariif ay sheegeen culimada waxay kaloo yiraahdeen zakatul fitri istilaahan waxay yiraahdeen infaaqu miqdaarin macluumin can fardin muslimin yuciiluhu qabla salaati alciidi fi masaarifa makhsuusa waxay yiraahdeen infaaqu miqdaarin macluum qadar la ogyahay bixintiisi waa raashinaa la bixinaa oo qadar la ogyahay ah yaa laga bixinaa can kulli fardi walbo qof walbo oo muslim ah qof kastoo muslim ah ayaa laga bixinaa waa noo imaan doontaaye qof kastoo muslim waxaa soo gelaya qof kastoo muslim ah qof weyn ah qof yar ah addoon ah xur ah mudakar ah mu'annath ah lab ah dhadig ah qof walba ayaa soo geli doona qof walba muslim ah oo ramadaanka dhamaystay oo bishii shawaal gaaray qofkaas ay ku waajibtaa goorma la dhiibaa qabla salaati alciidi ayaa la bixiyaa salaada ciid ka hor fi masaarif makhsuusa meel loogu talagalay lagu bixi khaas leh ana zakatul fitri qofkaas ma qaatee dad ashkhaas khaas qaatana jiraan la siiyo sharcigu uu sheegay zakada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waajibiyey asnaaf ay leedahay markaan asnaaftii zakada iyo dadkii loogu talagalay masaakiinta ahaa loogu talagalay oo sifooyinka la yaqaano leh waa noo imaan doonaane dadkaas ayaa la siiyaa waxaa kaloo lagu tacriifiyey sadaqatun waajiba sadaqa waajib ah waa maxay ku waajibtaa bilfitri afuray ku waajibtaa min ramadaana ramadaan laga afuro waayahay markaan waa saas wa masrafuhaa ka zakaati meelaha lagu bixiyana meelihii zakada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay lagu bixinaayo ayaa lagu bixina oo ilaahay yidhi inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin
ayadoo faahfaahsan aynoo imaan doontaa insha allah halkaasaan ku sharxi doonaa marka intaas waxaa waaye waa tacriifaadka istilaaxan culimmadeena ay sheegeen oo zakaatulfitriga mise sadaqatulfitri ay ku tacriifiyeen waxay yidhaahdeen tacriif intaas kasii faahfaahsan oo kulminaya dhammaan intii hadda aan soo sheegnay ayay sheegeen waxay yidhaahdeen sadaqatun macluuma صدقة معلومة بمقدار معلوم من شخص مخصوص بشروط مخصوصة عن طائفة مخصوصة لطائفة مخصوصة تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين markaan tacriifkaana wuxuu yahay tacriif shaamil wixii oo dhan isu keeni kara waa sadaqa macluuma sadaqa la og yahay la yaqaano xilligeeda la yaqaanaa dadka laga rabaa la yaqaanaa dadka la siiyaa la yaqaanaa bimiqdaarin macluum qadar muayyan la yaqaano ee la bixiyaa qadarkeedu waa la yaqaano min shaksin makhsuusin shaksi مخصوص اللي أجيها على قاعدة بشروط مخصوصة وحيلا هاي شروط ليقانه ما إيمان دونته عن طائفة مخصوصة طائفة معين اللي أجيها أي على قاعدة شروط له وما إيمان دونته لطائفة مخصوصة طائفة كوح ليقانه شروط له أي على سيالو تلقى تجب وحيك واجبتها بالفطر أفرك رمضان كأي رمضان أو أنك أفرق مركزي واجبي بالفطر من رمضان طهرة للصائم وحن الله تلقى قفك الصائم كأصومن إنه يطهر ذو نظيف ذو محيك نظيفني من اللغو والرفث وحيابي كالدعي أفحمدي إيو عايدي إيو وحيابه الله إماذي كي صناي أي كنظيفني وطعمة للمساكين dadka masaakiintan waxay u tahay qud waxay cunaan u noqon marka ninna waa bixina waxa laga nadiifina dambigiisa ninna waxay u tahay qud wax uu cunay u tahay antaasi taariifka zakatul fitri mise sadaqatul fitri ayaan rabaa inaan ku dhaafo horta maxay tahay zakatul fitri mise صدقة الفطر محيتها تعريف كذا أيام رواء أنت سنة كل عفو وحان وجود بقى حكمك أي لا هاي زكاة الفطر حكم زكاة الفطر حكم كذا وامح ما واجبة صنمية زكاة الفطر مسلمين تأكتوذي محيكتها زكاة الفطر وواجب bixinteeda waajib waaye laakiin ku waajibay yaa laga rabaa inuu bixiyo zakatul fitriga taas waa ii dambaysa laakiin guud ahaan sharciga wuxuu ka qabaa zakatul fitr inay tahay waajib ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wama ataakum ar-rasuul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu نبي عليه الصلاة والسلام ما دام أصل وبحيي ونا أمري قرآن الجودان وحن كفهمينا نبي عليه الصلاة والسلام وحي أمر وكبحيي بس فعلها أصميه ونا أمره إن يتهي واجب مركا نبي عليه الصلاة والسلام أيا أمري إلهي سبحانه وتعالى نوحو نبي عليه الصلاة والسلام وحو لا إماضة إن قادنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه حديث وري عبد الله بن عمر وحاكو جرتي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان النبي عليه الصلاة والسلام وحو فرض كدغي فرض هو واجب وحو كدغي زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين نف والبو
oo muslimiinta ka mid ah markaan qof kastoo muslim ah waa ku waajib inuu bixiyo zakaatul fitriga laakiin waa midka awoodo waay qofka kara waay islaamka mar walbo markuu wax waajib ka dhigaya waajibkaasi waxaa la socoto qudra awood qofkaan ma karaa mise ma karo markaan qofka awood u leh inuu bixiyo zakaatul fitri waxaa laga rabaa inuu dhiibo waana ku waajib waa inuu bixiyo axaadiis badan ayaa ku soo aroortay inay tahay waajib markaan muslimiintana iskuma khilaafin inay tahay waajib ibnu mundir ayaa wuxuu soo naqlinaa kitaabkiisa al-ijmaac wuxuu kusoo guurinaa wuxuu leeyahay zakaatul fitriga waa waajib qof kasta oo muslim ah oo awood u leh oo bixin kara waa ku waajib markaan ibnu mundir wuxuu soo guurinaa inay tahay mas'alo ijmaac ah bayna almuslimiin ayuu soo guurinaa ibnu qudaama ayaa wuxuu leeyahay ibnu qudaama alxambali ayaa wuxuu leeyahay ana zakata alfitri tajibu calى kuli muslimin maca alصagiiri wاlkabiiri wاldukuriya wاlunuhiya zakaatul fitriga waxay ku waajibtaa qof kastoo muslim ah ha yaraado ha weynaado lab ha ahaado mise dhidig ha ahaado way ku waajibeen markaan culummada oo fuqahada muslimiinta qadiiman wa xadiidan waxay isku raacsan yihiin zakaatul fitriga inay tahay waajib oo laga rabo qof kastoo muslim ah haddana mustatiica awoodu karo awood u leh qofka muslimka wax aan awoodin lama saarin qofkii markaan haysto habeen iyo maalin wax uu cuno qofka haysto quutu yawmihi qofka haysto iyo habeenkii iyo maalintaas haysto wixii ka dheeraad ah ayaa laga rabaa anagoo inoo imaan doonto faahfaahintaas insha allahu tacaala markaan xukunkeedii waa kaas waa waajib qofka oo awood u leh inuu bixiyo waa yahay xikmadda ku jirta waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu wax waajib yeelay waxaa loo waajib yeelaa liajli xikmad darteed ayaa loo waajib yeelaa xikmadaas dadka ha ogaadaan ha fahmaan mise aysan ogaanin mise gabal ha ogaadaan gabalna ha ka maqnaato laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu wax waajib yeelay laabudda min xikma waa inay jirta xikmad la-aan looma waajib yeelo culummadu waxay leeyihiin zakaatul fitriga xikmada ku jirto in la bixiyo waxaa ka mid ah tuhratan lisaa'im nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lafdigaas sheegay qofka sooman ayay tahirinay ayay nadiifinay min allagwi waalrafath waxyaabihii ka dhacay intii uu soonaay ayay ka nadiifinay markaan taasaaba haddii la yidhaahdo zakaatul fitri bixi maxaa yeelay dembigii yaryar kaa dhacay intaas sooneed ayay kaa tirtir haddii lagu yidhaahdo intaasay kugu filan tahayba intaas waa ku filan tahay qofki inuu xikmad weyn uu u arko faa'iidana uu u arko intaasaa ku filanba maxaa yeelay 30 maalmood aad sooman tahay mise 29 aad sooman tahay maxaa shay kaa dhacay kam qof kastaba waxbaa ka dhacay lagwi iyo rafath wax badanaa ka dhacay lidaalika waxyaabahaas yaryarka qofka ka dhacay
in laga nadiifiyo soonkiisi taam uu u noqdo waa faa'iido aad iyo aad u weyn iyo oo ay ku jirto xikmad rabbaani ay ku jirto tan labaadna waxaa waaye faa'iido ay ku jirto tu'matan lilmasaakiin dadka masaakiinta ah waxay u tahay quud maxaa yeelay maadaama muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku waajib yeelay inay iscaawiyaan ay iskaalmayaan horta waa iskaalmayn kii xoogaa haystay inuu wax ka dhiibo xoolihiisa uu siiyo walaalkiisa maadaama ay tahay maalin farax kii qaniga ahaa inuu farxo kii faqiirka ahaay waxba aan haysanna maalinkaas inuu u farxo oo xaajidii haysay baahidii uu qabay baahidaas inay ka zuusho markaan su-aashii iyo dadkii wax weydiisigii iyo xaajidii ku taagneed iyo ayaa laga fujinaa si farxaddaasi maalinkaas weyn muslimiinta oo dhan ay u wada qaataan ay u wada farxaan marka halkaas waxaa ku jira muslimiinta iskaalmayntooda ayaa ku jirto dadka muslimiinta inay iskaalmayaan ay iscaawiyaan ayaa ku jirto waxay kaloo sheegeen culimmada waxaa laga helaa thawaab weyn ayaa laga helaa maxaa yeelay waa sadaqo waa qofkii ayadoo haddana ay tahay waajib ku saaran haddana waxay ku tahay sadaqo qofka uu ka helaaya ajar uu ka helaayo waaye waxaa kaloo sheegay culimmada washukran lilah ilaahay subxaanahu wa tacaala in qofka uu ku mahadiyo ay ka dhigan tahay maadaama ilaahay kusoo waafajiyey ramadaanka soonkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qofku soo waafajiyey sun nabad uu ku dhammaystay shukran lilaahi ayaa wuxuu u dhiibaa sadaqa ayuu baxsanaa shukran lilaahi subxaanahu wa tacaala ayuu baxsanaa markaan sadaqadaasi ayadoo ay tahay xilli oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarka uu laalaabayna la joogo bixinteeda wanaagaas badan ay leedahay shukran lilaahi in loo bixiyo oo qofka awood u leh qalbigiisa uu wanaagsan yahay ciddii loogu talagalay inuu siiyo duruusteeda soo socota waxaan ku sheegi doonaa insha allahu tacaala dadku loogu talagalay sifooyinka ay leeyihiin iyo kan bixinaaya sifooyinka uu leeyahay qadarka la bixinaaya iyo xilliga ay waajibayso intaasoo dhan waxaan ku sheegi doonaa insha allahu tacaala duruusa soo socoto ayaan ku bixin doonaa baaraka allahu fiikum وجزاكم الله خيرا. أقبلت جمالا يا رمضان نورا يتلاء بالقرآن بركاتك كم تبني الإنسان بالطاعة فيك وبالإحسان